barqadii maanta ay ahayd markii guud ahaan magaalada qaybo badan oo kamid laga maqlay qarax weyn kadibna dadka dibadda u baxay ay arkeen qiiqa cirka isku shareeray meel aan sida uga fogeyn gegida ciyaaraha ee Muqdisho Stadium halkaas oo ay degan yihiin qaybta saadka ee ciidanka qaybta 27aad ee militariga Soomaaliya gaari waxyaabaha qarxa lagu soo raray ayaa la sheegay inuu beegsaday ilinka xarada intaan la gaarin checkpointiga ka horeeya dabadeedna uu xoog uga gudbay halkaasi rasaas ayay ku fureen ciidankii halkaasi joogay dabadeedna gaarigaasi markii dambe ayuu isqarxiyay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa laga soo wariyay goobtaasi inkastoo ilaa hadda saraakiisha militariga Soomaaliya iyo dawladuba aanay midkoodna ka hadlin khasaaraha weerarkaasi uu dhaliyay kooxda al-shabaab oo weerarkan fuliisa ayaa sheegtay in bartilmaameedku ahaa xeradaas ama halkaas oo ay degan yihiin qaybta 27aad ee militariga Soomaaliya waxay sheegeen inay halkaasi ku dileen tiro ka tirsan militariga kuna dhaawaceen tiro kale isla markaana gawaari dagaal ay ku burburiyeen weerarkaas isqarxinta ahaa hase yeeshee ilaa hadda wax wara oo dhinaca dawladda ama saraakiisha militariga Soomaaliya ka soo baxay ma jiraan laakiin ila ciidamada ku dhow oo BBC hadlay waxay sheegeen in weerarkaasi uu dhaliyay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh inkastoo tiro rasmi ah aanay sheegin al-shabaab waxay sheegtay in weerarkaasi uu ahaa mid ay doonayeen inay ku curyaamiyaan militariga Soomaaliya gaar ahaan qaybtan 27aad oo ka howlgasha Hirshabelle gaar ahaan gobolada Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan oo ay dagaalo badan halkaas kula galeen marka wuxuu ahaa mid kamid ah weerarada al-shabaab ay la beegsadaan xerooyinka ciidamada militariga ee Soomaaliya Ibrahim marka halkii qaraxu uu ka dhacay ama weerarku uu ka dhacay waa sidee hadda jawigeedu waxaad moodaa inuu jawigu soo degayo oo ay xaaladdu caadi ku soo laabanaysa inkastoo aaga xerada ku taalo ay wali xiran tahay oo aan warbaahinta iyo dadka caadiga ah midkoodna aan loo ogolaanin haddana markii horeba waxay ahayd aag xiran oo dadku ay ku yar yihiin marka dabcan waxaad moodaa inay xaaladdu soo degaysa laakiin wali warbaahinta iyo dadweynaha midkoodna looma ogolaanin inay gudaha u galaan soona arkaan wixii halkaasi maanta ka dhacay